qof wala kala tagi kara xalafana jira ma hasa anaga jecelnahay wallahi maanta hatta dunida isku jeceshiin oo calafkiina dhamaaday cidna iskuinkiin dari karta malahan laakiin calafka haduu jiro oo si kasta u kala fogaataan qofkaas meel ku kala go'aysan malahan maanta anigana sidaashada ka jawaabo calafka dhamaaday saasa dhigi kara wax kala dhigi kara malahan marka aniga iyo rashka waa kala tagnay fadlan daawada hadda nagu cusub tahay subscribe saar gambalelkan furo like share commentigana ha iloobin ayaan ku leeyahay ku soo dhawaada muuqaal cusub maalmihii ugu dambeeyay waxaa la hadalhayay khilaafka u dhaxeeya lamaanaha Rashka Boy iyo Queen Hafsa taasoo la sheegay inay kala tageen dadna ay leeyihiin khilaaf baa ka dhaxeeya balse ugu dambeyn waxaa hadashay Queen Hafsa oo dhawaan furatay bar ay leedahay oo iyada u gaara oo YouTube ah waxa ay muuqaal ay soo gelisay ku sheegtay in gabi ahaanba ay kala tageen isageedii hore ee lagu magacaabo Rashka Boy Queen Hafsa waxay sheegtay in calafkii u dhamaaday taasi oo sababtay in ugu dambeyn la furo waxay sidoo kale sheegtay in arintan ay in muddo soo jiitamaysay kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay labadaas lamaane waxay sheegtay in hadda wax ka dambeeyay ay tahay qof madax banaan oo la furay sidaasna ay la wadaagtay dadka ku xiran YouTube-keeda oo ay dhawaan furatay Queen Hafsa waxay sheegtay in khilaafkaas muddo soo taagnaa uu kalifay in labadan qof ay isfahm waayaan iyadoo sheegtay in ay arrimahaasi cadeynayso in iyada la furay oo hadda wixii ka dambeeya ay noqonayso qof madax banaan Queen Hafsa iyo Rashka Boy oo ahaa mar dhawaan dad ka soo muuqda baraha bulshada gaar ahaan dad lamaano isqaba ayaa hadda u muuqanaysa in ay kala tageen waxaana warkan uu cadeynaya ama uu xoojinayaaba warar maalmihii ugu dambeeyay isla dhaxmaray oo sheegayay in Queen Hafsa la furay Queen waxay sheegtay in hadda waxay ka dambeeyay ay noqonayso qof nolosheeda u madax banaan dhawaan ay markii ay furatay bar u gaara oo YouTube ah oo iyadu u gaara waa hagaag warkan wixii ku soo kordha nala soo qof wala kala tagi kara xalafana jira ma hasa anaga jecelnahay wallahi maanta hatta dunida isku jeceshiin oo calafkiina dhamaaday cidna iskuinkiin dari karta malahan laakiin calafka haduu jiro oo si kasta u kala fogaataan qofkaas meel ku kala go'aysan malahan maanta anigana sidaashada ka jawaabo calafka dhamaaday saasa dhigi kara wax kala dhigi kara malahan marka aniga iyo rashka waa kala tagnay waa fahamteena u maleynaa aniga dadkii dhahay wiilishan waxa wax ugu soo duubaysaa waa lagu qabaa xisho maya aniga maanta qof madax banaana ee cid iqabtana malahan cid xiriir leeyana ma jirto marka waan bariya su'aalahan ay weydiinaysaan ay dhahaysaan like qof la qabaatay waxa tahay qof xaas waayo wiilishan la sameynaysa aniga aqligayga uu dhameystiran yahay marka ugu horeyso mihi cunug yar oo maanta wuxuu doon iska sameynaa mihi maanta qof wuxuu doon iska sameynaa like maanta anoo li qaba awalba hore anoo li qaba wad arki jirteen social media waa ka soo muuqan jiray ama nin kale waa aragteen waa may waayo maanta idaysa marka qof la qabaatay maxsa u sameynaysa wallahi aqli waa qaba anoo li qaban lagma yaabo inaan nin kale wax la sameeyo marka tabcan idinka runta maadan ogeen runtan si qaldan la idin fahansiiyay qofku rab ha ahaado bad ana maanta runta idin sheegaya ana cid qabtaan fadlan daawada hadda nagu cusub tahay subscribe saar gambalelkan furo like share commentigana ha iloobin ayaan ku leeyahay ku soo dhawaada muuqaal cusub